السلام عليكم. وين سلام دمان قرابada iyo eerkan igula nool magaaladan Edmonton iyo Alberta dhamaanteedba iyo Canada. Waxaan halkan soo fariistay mar labaad oo shalay iyo maantii aan rabay inaan dadku baraarujiyo in bisha 13keeda Saturday-dan Sabtiyaan soo socota 2025 shantii barka inaan ku qabanayn inaanu abaabulnay goobtii lagu qaban lahaa shir lagaga hadlayo arrimaha quseeya saad ogtihiin magaalada iyo gobolkaba waxaa ka socda doorasho degmooyinka iyo duqii magaalooyinka oo afartii sanaba mar dhacda codkeedan bixintooduna ay dhacayso October 20keeda advance voting-ka ama cod bixinta hor dhacsan waxaa la qabanayaa 7 bisha ilaa 11 October. Waxaan marka arrintan si aanu arrimaheena maartay waanu target uga dhigno waxaanu shirkan u qabanay dadka u tartamaya doqonnimada magaaladan ama maayarka ilaa 6 ilaa 7 ah baa imaanaya oo confirm gareeyay xataa nin hore waxaan jiray maayarku aad noola shaqayn jiray baa yiri anaa imaanaya isaguna oo cid wata isaga ka warqaba sababtan u samaynayna ka bacdina waxaan jeclahay dhamaadka bisha iyo bisha kale horaanteeda inaan qabano maayarada 13 degmo school boardku waxa noo qaabilsan Axmed iyo Xasan Tukada labadaas nin baa arrintaas noo qaabilsan 9 goobood weeyaan arrimahaas laba ka mid ah iyaga oo cararaya meelaha kalena iyaga baan wax ka weydiinaynaa anigu myself waxaan ka warqabo iyo siyaasad iyo qof aan aqaano platformkiisa iyo cidaan maanta dhigi kara qofkan loo sameeyo ma jirto laakiin magaalada waxaa jooga dad aqoontooda waqti nooga digi kara recommendation bixin kara ama nagala dardaarmi kara cidda ay isleeyihiin waa ugu sahlan inkastoo aan la malayn karin rag badan mar alaala markuu kursiga ku fariisto sidaas politicianku kama duwana kuwa Soomaaliya ay la yimaadaan maxaa la yiraahdaa ay arrintooduba ay meel kale maartay wax qabadkiisa u badiyo laakiin at least meeshan waxa weeye dimuqraasiyad cidii adigu wajiga aad ku lahayd way adag tahay inuu maartay ku dafiro haduu ninkaas sameeyana hadda 4 sano waxa weeyaan ninkan waa nin rajo kale politician nimada marka aaminaadiisi baa meesha ka baxaysa innagana waxaan rabaa inaan ku baabaraajiyo waxa horta hadda noogu horeeyo oo lagu hayo dhibta noogu horeysa waa guryaha sababtoo dad badan baa meesha la keenay oo sponsorship ah maxaa la yiraahdaa dad badan baa magaalooyin kale ka yimid gurigii waa nagu careeri gaaladii baa ka sheeganaysa hindi badanna wadanka waa lagu soo falaad garay oo maartay wadankooda ka yimid laakiin nimankan waa niman luqadooda u dhisan tahay wax yaqaana qaraabakiil leh oo dadkooda meelaha ka shaqeeya ay qaraabakiil ku geenayaan marka taas oo dhib weyn bay keentay innaga ismana qaraabsano qofkii haddaan keenana waxaan u qaadanaa inay hawshiisa naga dhacday laakiin taa maaha macnaheedu waa taan rabnay inaan ka baraarugno laakiin dadkan inuu noo yimaadaan oo aan ku yeelan meesha dad tira badan waa wax wanaagsan sababta meeshaad ku badan tahay waxa weeyaan cadowga waad ka riixan kartaa danaha qaarka laakiin inagu ma isticmaalo xooggeena qofku hadduusan codayn karinin maaha inuusan arrintan ka qayb qaadan karin wuxuu la xiriiri karaa qofka cararaya maxaa la yiraahdaa wuu maartay campaign gareyn karaa dhowr nog buu samayn karaa flyerada uu qaybin karaa waxyaalo badan buu samayn karaa lacag buu siin karaa marka dadka keenay iyo dadka iyaga keenayba waxaan u baahanahay inaanu qaadano mas'uuliyadeeda hogaameed oo wadankan joogta inaga dadka keenay inaga wadanka uga soo horeynay dhiigga dhaqan iyo dhalasho naga dhaxaysa maanta meel lagu qarsoomi kara ma leh yes marka dhibaato ka timaado wadankeena waa u gurmanaa laakiin inaga maanta ma haysata maanta dad waxaad maqlaysaa 10 5 6 10 guriga lagu nool yahay oo markii ay bixi lahaayeen guriga kala aadeen loo diido social support-kii lagu dhibo loo diido ama keensa guriga laga kareen waayo intaba waxa weeye waa waxa loo heli karo hawsankan noogu horeeyay soo ma fahmin dadku waa dareensan yihiin waa dhibooda haysata xataa dadkayga joogay baa dhibti haysata guriyihii qaali bay noqdeen waxa weeyaan annaguna horay beer uma falino dadka noo yimid iyo ilmaha iyaga midna uma anafalin eedaas in dadka la saaro way waxba yaan dad kale iyo fadhi ku dirirka
tim hortanka la eedaynin maxaa la yidhahdaa soomaaliya xasan sheekh iyo arrintaas dad bay haysataa dhibtooda ku filantay innagu inaynu dembi ka kororsanno maaha halkaan bay nagu haysataa berri sabtigan 13:05 galabnimo ama waqti oga ku imow ama kasoo hormar soomaalidu waqtiga waa waqtiga wax weeyaan diintii xitaa uga baxayaan ballanta wax qof baa wuxuu imaanayaa 3 sano markaas la leeyahay sugo annagu taas ma banaqaano sheekada shirka waa bilaabanaynaa waqtigiisa koodi marka laakiin waxaad nagu caawin kartaa inaad timaadid ama on time timaadid oo shan barka ama kasoo hormartid ama aad volunteer keentid ama biyo hore u soo qaadid war waxyaalo badan baan samayn karnaa manaha aniga iyo Jibriil in kama dhaqaala badnin aniga waliba waa la ogyahay oo mar dhawaaban imid marka waxaan ku leeyahay dhaqaalaha hala baxsho qofku mas'uuliyadiisa ha qaato walaalayaalow imaada flyerkiisa meelo badan baad ku arkaysan laakiin anaa inii soo gudbiya videogan gaarsiiya dadka u baahan qof walba ha share garay wax hadda maxaa la yiraahdaa dana oo gaar ah kale aan ahayn dantan wada saaran doontaan wada saaranahay jir luqadaas iyo diintaas iyo waxa naga dhaxeeya waa wax walba ka weyn so taasana aniga kulay bay dhibaysa dad badanna dhibaysa aynu u istaagno samee fahmin arrintan waa arrin aad u xun dadka iyaga dibadda joogay dadka meel kasta waxaa joogeen maanta gobolkan Canada waxa ka taagan homeless baa lagu noqonayaa haddaan sida hadda wax ka jira aan wax loo qaban in loo gurmaday noqonaysa lacagna loo soo diro aan dadkan guriga u karin bay noqonaysaa yaan waxba madaxa ciidda laga ceshin loo malayno wadankan inaanu barwaaqo ay ku jirto wadankan barwaaqo leeyahay laakiin xilligan hadda la joogo way ka taalaa wadankan waa up and down dadka ay ku noolaaba arki jiray mar waxa jirta la yiri Edmonton qofka ugu dambeeyo meel ka soo dib oo saa loo kala carreebaan joogo maanta boomin waa imaanaysa way fantamalaya way imaanay laakiin waxa weeye maxaa taqaanaa dadka waxaan ku baraarujiyaa wax barta yeesha makaani maxaa la yiraahdaa waxa la shaqooyinka wadanka laga qabto dhan mid un ka baro hadhow markii wadankan economics kor u kaco waxaad helaysaa lacag dhaqaale aad wax ku qabsatid iyo meel shaqo aad markaas aad waqti badan qaadamanaysid sababta hadda shaqo way taalaa laakiin shaqada maxaa taqaanaa taas waa hindidu ay nooga qaateen wadanka sababta niman xirfad leh bay ahaayeen in ma adeeryaalo walaalayaalo fareen cino talla ayay aan show up gareyno in arrimaheenu ay muhiim tahay waxaan ku cadeyn karnaa dadka yimaada meeshaas shanta galabna ma ka soo hor shanta imo ama shanta barnama imo si aanu marka u tusno dadka inaanu nahay dadka nidiyaana wadanka la qabsaday laakiin sidii arooska iyo xafladaha inta la ballamiyo shanta imaani sagaalka samay fahmin waxaan leeyahay shanta la bareemay sagaalka imaaniyadoo xaragoonaysa meeshan show off loo ma baahna soo qabso hilifkaaga bahalkaaga imow waqtigu waa waqti yar hadda saddex qaybood baan ka hadlaynaa arrinta khusay guriyaha waa arrin noogu horeysa arrinta ku xigtana waa arrinta shaqo la'aanta iyo sida wax looga qaban lahaa ee naga caawin karaan nimankaan oo aysan shaqo ahayn laakiin intay haystaan waxbay naga siin karaan federaalka iyo gobolkana waa noogu diri karaan oo si dadka loo train gareeyay maxaa la yiraahdaa midda ugu dambeysana waa booliiska iyo kaamaradan loo xiray oo inta loo xiray faraha laga qaaday oo aan la fiirinayn taasna waxaan rabnaa waa ogtiina booliisku dhibta uu nagu hayay iyo dhibtu nagu hayay haddaba walaalayaal saddexdaas noogu muhiimsan waxyaalo kale waa jiraan oo u baahan iyagana waa ku dari doonaa laakiin saddexdaas noogu muhiimsan dadkan oo local weeyaan waxa kaliya qaabilsan yihiin waa waxyaalaha localka arrimaha federaalka iyo gobolka inaan ula imaanin insha Allah haddii aan isku aragno Somali in 39 Street iyo 118 Avenue oo Beverly xaafada shanta iyo ka hor imo waa bilaabeen haddana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh